بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلهي بينو مهاديننا إن بدن نعم كي سفرها بدن بينكم مهاديننا إسلام نمذي إيمانك وينسيه بينو إلهي ومهاد علينا nabadgelyada iyo dalkeennii oo aynu ku nabdoonahay ayaynu ilaahay ugu mahad celinaynaa. Caafimaadka uu ilaahay inagu soo toosiyay ayaynu ilaahay ugu mahad celinaynaa, inaga oo ilaahay uga baryaynaa dadka walaalaheen ah ee ehelkeena ah iyo islaamkaba wada ah ee runtii buka aynu arkaynay qaarkood iyagoo miidiyaha ka hadlaaya oo kaadida aynu inagu intaynu meel asturan la galno ilaahay mahadii si yaroo fudud inooga timaada inagoo waxaan ku leeyahay fiican oo caafimaad qabna ka soo baxna iyagu duruuftaad ogtihiin ku gala. ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo, إنه ولي ذلك والقادر عليه. waxaan runtii bogaadinayaa ardayda faraha badan ee guuleysatay ee ka soo dhex baxday tirada faraha badan ee ardayda dugsiyada dhexe ee Nuuraddiin ee maanta aynu u joogno xafladooda. habliyeennamaba waan bogaadinayaa. waxaan gaar u bogaadinayaa hablaha ardayda sanadkan dugsiga dhexe dhammaysay ee iskuullada Nuuraddiin oo natiijooyinkoodii imtixaanku weli aanay soo bixin oo 1000 arday taqriiban ku dhowaa. imtixaanada ay wasaaraddu qaado ama xafiiska imtixaanaadku qaado intaan la gaadhin imtixaano badan oo ka horeeyaan ardayda dugsiga sare dhammaynaysiyo kuwa dhexeba ka sii qaadnaa. 15 arday ee ugu sarreeyay oo 10 kaalmood hore wada galay waxaan u malaynayaa 2 inan oo keliya ayaa ku jiray. dugsiyada sarena sidii maalintii hore shalay mahadaraad halka laga yeedhinayay 10 arday ee 4000 oo arday oo dugsiyada sare dhigtaa ugu sarreeyay 10 kuba wada hablay ahaay. isbedel weyn baan arkaynaa xaggii waxbarashada. waxaan arkaynaa hablihii dadaalkoodii inuu kor u socdo. waxaan arkaynaa inamo badan oo dadaalaya way jiraane aqlabiyad badan oo inamadii ahi in dadaalkoodii runtii uunu sidii la rabay ahayn. waalidka waxaan ku dardaarayaa awlaadda oo dhan ha laga warhayo, gaar ahaan inamada ilgaara waalido ha lagu eego. sheekh mustafa xaaj ismaaciil baa jazaahullahu khayr muxaadarad uu leeyahay ama muxaadarooyin dhowrahoo tarbiyada carruurta uu ka duubay ama uu kaga hadlayay ayaa hadal aad iyo aad u qiimo badan oo yidhi baa wuxuu ahaa Soomaalidu waxay yidhaahdaan iska daaya waa nin oo meel unbu ka soo dhiciye markaasuu meel daran ka soo dhacaa buu yidhiyo uu aabbihii ama hooyadii gacan u qaadaa hadduu doono. ilmuhu inta uu adiga aad wax u tari kartaa waxay yidhaahdaan hadal baa jira cali bn abi aalib radiallahu canhu wa ardaah laga soo wariyo oo uu leeyahay laacibhum 7 waadibhum 7 wasaaxibhum 7. ilmaha 3 meelood oo min 7 ah 22kaas ayuunbuu adiga saydaradaada ku jiri karaa. 7 koobaad la ciyaar min markuu ilmuhu dhasho ilaa 7 jir intuu gaadhayo
ilmaha waxaad u badisaa ma garanaysaaye ciyaarta iyo inaad si kalgacaltooyo fara badan leh ugu gudbiso waxa aad rabto oon cunfi iyo dagaal iyo culays iyo canaan iyo cidhiidhi midnaba ahayn toddobada ku xigana wuxuu yidhi edbi edabtuna waynu garanaynaayo waxa weeyaan aasaaskeedu ilmaha markuu 7 jir ilaa 15 jir waxa weeyaan waa halka ugu muhiimsan waa inta uu noloshiisu foomka iyo shape-ka saxda ah qaadan karto waxa la yiraahdaa xilligaasi ilmaha ay wax ka qalloocdaan sidaa uu ku qalloocday unbuu ku weynaadaa toddobadaasina waa edbin buu yidhi wuxuu yidhi wasaaxibhum sabcan toddobada ku sii xiga markuu 15 jir ilaa iyo 21 waxaad samaysaa ilmahaasi saaxiib la noqo waxaan ku celceliyaa kelmad aan mar walba waalidka la hadlaya yiraahdo waxa weeyaan noqo sirta sanduuqa sirta ilmahaaga waalidow waxaad noqotaa sanduuqa sirta ilmahaagu halka uu wax ku qarsanayo hadduu ilmuhu kaala baxsado cid kale ayuu baylah u yahay oo meel daran ka tuuraysa oon maslaxadiisa wadin marka toddobada dambe waa toddobada ugu hawsha badan waxa la yiraahdaa sinul muraahaqa the adolescence age waa da aad u hawl badan waxa la yiraahdaa teenage oo marka 13 laga soo bilaabo deen 2 sano dib u guurno ilaa iyo 19 ayaa la yiraahdaa teenage waxaanay ka timi bay yiraahdaan numberka 13 ilaa iyo 19 waxa marka la tirinayo waxa ugu dambaysa kelmadda la yiraahdo teen 13 14 15 16 17 18 19 da'da waxa la yiraahdaa teenage da'daasi waa da hawl badan maxay ku hawl badan tahay Soomaalidu xoolo dhaqatay ahayd waxay yiraahdaan geela oo xoolaha loogu jeclaa ayaa waxay yiraahdaan qaalimada yaryar markay cabirayaan baa waxay oran jireen Soomaalidu edegna uu ka tagay nirgaha yar baa lagu yiraahdaa edeg baa lagu yiraahdaa marka uu neefka nuugayo hooyadii ee laga celinaya caanaha laga maalayo markuu awr weyn gaadhana dooh baa la yiraahdaa dooh marka Soomaalidu waxay yiraahdeen edegna uu ka tagay doohna muu gaadhin waa marxalad dhexe marxaladaasi waa marxalad arday fara badan ama awlaad fara badani ay indhaha furtaan oo hareerahooda eegaan oo gobonnimo doon inay ku jiraan oo is xoreynayaan waalidka inay ka xoroobayaan madrasada iyo macalinka iyo iskuulka inay ka xoroobayaan ay in badan isu aragto sababta daraadeed baa la leeyahay saaxiib ula noqo sababta daraadeed baa loo leeyahay sanduuqa sirtiisa ama sirteeda noqo waxaan runtii ugu mahad celinayaa waalidiinta halkan fadhida inay yihiin waalidiinta aqoonta iyo akhlaaqdu way wada socdaan ardayda had iyo jeeraale xagga sare soo maraysaa ee kaalmaha ugu horeeya qaadanaysaa aqoonta markay ku wanaagsan yihiin waxa ka horeysa inay akhlaaqdiina ku wanaagsan yihiin waa shay mujarraba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu awlaadda inoo barakeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu camalka aanu qabanayno nooga dhigo mid khaalisan liwajhi oo inaanu ummad soo saarno
ummadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna wax ku soo kordhisa oo khayr ku soo kordhisa ilaahay inuu inaga dhigo waxaan kaga baxayaa jaa'isadihii baynu ardayda u qaybinaynaaye qodob aad u muhiima niyad jab dad liita oo iyagu gaari kari waayay wixii ay ahayd inay gaadhaan ama mas'uuliyadihii ay lahaayeen ayaa ardayda from kuwa yaryar ee wax dhiganaya ilaa iyo kuwa jaamacadaha ku jira ayaa lagu baahiyaa waxaan u malaynayaa arrintaasi in ay tahay arrin abaabulan oo dadka in gaarihi ay runtii ay wado waxaa la yidhi dacwadu geedaha ma fuusho markaa hilib geed ka soo laalaada ayay dacwo istidhi cun laakiin geedka ma fuuli karto dabeedna way isku dayday way ku booday way isku dayday way ku booday markii ay gaari kari weyday ayay intay say soo istaagtay bay hilibkii eegto waxay tiri qaaq ma fahanteen ujeedada waxa weeyaan wixii qofku uu gaari kari waayay ayuu ciddii gaadhay ee isaga guusha ilaahay ka siiyey ayuu doonayaa inuu uga dhigo inuu isagu ka fiican yahay waa tusaale xun in uu bulshadu ay ku dayato dadka intiisa xun waa liidasho iyo dib u dhac in been la isugu sheekeeyo akbar ukduuba been abuurka ugu weyn ee waddankeena yaalla waxaa ka mid ah shaqo la'aan baa jirta fursaduhu way yar yihiin laakiin dee waxaad eegtaan ajnabiga waddankeena ka shaqaysta u fiirsada qof ajnabiya oromada jaarkeena dheh oo bilaa camal ah ama bilaa shaqo ah oo waddankeena joogo ajnabiyihi ma jiro waxaa jooga people of mixed nationalities hargeysa waxay noqotay cosmopolitan city magaalo dad jinsiyado kala duwani ku nool yihiin ama Soomaaliland waa maxaa sababaya su'aashu fursad baa jirta fursadaha jira Kenyan Ugandese Afrikaan kaloo kala duwan Asian Hindi Bengali Nepaliyin Pakistan dadka kala duwan baa jooga qof aan shaqo haysan ma jiro waxa laga yaabaa inay dadka qaar cudurdaar ka dhigtaan ay yiraahdaan skillskeena iyo xirfadaheena ayaan fiicnayn inan baa ii sheekeeyay kamida ardaydii iskuulka innaga lafteena mustaqbal ahaan iyo awlaadeena habka aynu ula macaamilno ama bulsho ahaan sida aynu isugu tiirsannahay lafteedu waxay noqon kartaa tusaale aan hawsha taagan lagaga bixi karin inankaasi wuxuu yidhi awlaadda uu dhalay aabbahay wuu igu jeclaa gunno ka warhayn gaaru ogaan ayuu aad iigula dadaali jiray dugsi hoose dhexe sare jaamacad maalintii aan soo qalin jabiyay jaamacadda ayaan anigoo faraxsan oo family-gii oo dhan ay hareero tuban yihiin ayaan gurigii tagnay qadadii baan soo fadhiisanay markii aan qadadii ku fadhiistay ayay hooyaday ayaa telefoon ii dhiibtay marka aabihii dalka ma joogee dibaddu ku maqan yahay telefoonkii markuu ii dhiibay ay ii dhiibtay hooyo ayay igu tiri buu yidhi aabbahaa baa ku doonaya la hadal aabbo hambalyo tacabkii si fiican baad u dadaashay aniguna waan kugu faraxsanahay adigana waan kuu hambalyeynayaa waajibkaagii waad gudatay waxaan kuu sheegayaa aabba qadada iminka aad guriga ka cunayso cunto kaloo kaaga dambayso guriga aad ka cunaysaa ma jirtee shaqo tag adigaan kaa doonaynaa iminka inaad wax soo kordhisee wuxuu yidhi inuu aabba igu ciyaarayo ila kaftamayaan moodayo
galabtii intaan iska yara baxay baan fiidkii sidii caadiga ahayd guriga iska imiyo waxaan arkay buu yiri alaabtaydii iyo shandadii iyo waxaygii oo dhan oo hooyay si diyaariso halkan ii yaala qarmay ciyaarayaan dabadeedna hooyay maxaa dhacay miyadaan aabaha war isku ogeyn waa kan go'aankii gabagabadii nabadgelyo hooyay nin baa tee magaalada iska celi waxbaad baratay wuxuu yiri magaaladii weynayd iyo wadankii ii iftiimayay karoodhid yarun buu igu noqdo way igu soo ururtay anigoo isla dee miyaad isdaldashaa maxaa oo shaydaan wax walba igu sheekeeyay ayaan inaan la hadlay buu yidhi aan saaxiib nahayo markaasaan ku yidhi warniyow reerkii bay soo eriyey haddaad meelaan seexda ii heli kartoon alaabta dhigto waan kuu ducayn lahaa saaxiibkay wuu soo dhaweeyey buu yidhi dee mahurda ayay imanaysa habeenkii waan tallamayaa waan fakerayaa maskaxdaan rogrogayaa nin baa ilaahay u taallaa fakeradee nin qabyalaa wax qabsada nin qabya u taallo ayaa wax qabsada lo'da dadka looleydii way garanayaane waxa la yidhaa cawsiyo biyo ku nool mala caruurta lagu cabsiin jiray qofka looda haystaa biyaha kama qado biyuhuna dalkeenna way ku yaraayeen oo waaba la isku dili jiray ceelasha dabadeedna nin looda leeyo gabyayaa wuxuu yidhi habeen way talan hal habeenoo aan la hubin bay hurdaday tahay lo'dii markuu waraabinayay buu u heesayaa habeen way waa habeenkuu soo waraabiyo oo uu daalan yahay waa ii oo meel walba way xanuunaysaa habeen way talan waa habeenka uu aroortoo kale aroorinayo wuu tallamayaa wuu fakerayaa wuxuu isleeyahay talow ceelkii cidimiyey kaaga horeyn miyaa biyihiisu siday noqon waa tallamayaa hal habeenoo aan la hubin bay hurdaday tahay buu yidhi hal habeen oon la hubin bay hurdaday tahay wuxuu yidhi habeenkii hurda wayii ima weyday ileen qabyaa ii muuqatee subaxii go'aan baan la soo kacay buu yidhi go'aankaan la soo kacay waxa weeyaan buu yidhi nin buu ilaahay kaa dhigaye kac shaqo tag suuqaan u soo baxay dabadeedna waxaan arkay buu yidhi niman meel kuuli laga guri la dhisayo jooga dhinacuu maan ka galay buu yidhi waaba lay qoray maalintii oo dhan wuxuu yidhi waxaan gurayey baaldiyo ay ku jirto sabbadii dabadeedna labadaa gacmood baa ileen gacan u diyaarsan maahee ayaa diirkii iga mudxay bacmiikooyinka meelaha yaalyaalee dabayshu sidataan urursadaa buu yidhi oo marba gacan baan ku duubaa ma bacmiikaa celinaysa baaldi sabbad lagu xijinayo wuxuu yidhi markii dhiiggu aan shalaqsaday sharabaadadii baan la baxay buu yidhi oo waan ku duuduubay dabadeedna wuxuu yidhi maalintii ku xigtay waan ku celiyey 3 habeen markaan inankii la joogay inama aan aqaano masaajid imaam inan ka iyo laba inan oo kale oo masaajidka la seexan jiray baan ku yidhi arne waan idiin imaado masaajid baaban agabtii dhigtay aroortiina kuuligaygaasaan galaa ilaahayna iima darnaanoo kuuliga wuxuu yidhi intii yareydaan soo shaqeeyey waa in hawl badan maaha in lay siiyey wuxuu yidhi waxaan cunaa cashada ta ugu jaban ayaan ka fakeraa buu yidhi si aan dee saving u sameeyo wuxuu yidhi lacag xoogaaya baa iiga biirtay kuuligii hadda waa ninkii shalayto loo xafladaynayay university graduate-ka ahaa noloshu cidna bilaash waxba kuma siiso ma fish xaga bibilaash wuxuu yidhi waxa ii xigtay inaan dhaweeyo $10 maalintii layga qaado kiraysto lacagtii yareedeen haystayna
driving license liisan kan baabuurta lagu wado inaan ku samaysto ilaahay baa meesha wax ka wadee risqii buu ii furayo $10 ee aan dadka gaariga la siinayo mooyaane habeenkaan ugu yarahay wuxuu yiri $20 iyo $30 ayaan save gareeyaa markaan cuntadayda iyo ka reebo shidaalka gaariga within short unbelievable time waqti yaroo kooban oo aydan rumaysan karaynin gudihiisa ayaaban anigu gaari iibsaday buu yiri dabeedna 10kii xagga aan ku bixinayna xaggan u galay masaajidkiina waan ka baxay buu yiri oo guri yar oo dhowaan qol ka kireystay ninka aan idin sheegayaa maanta wuxuu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee magaalada Hargeysa I don't want to mention the name magaca inaan sheegaa muhiim maaha waxaan uga socdaa noloshu qof qabiye leh oo baylah leh ayuunbaa wax qabsan kara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh